in xildhibaanada taageersan badbaadada baarlamaanku ay u taagan yihiin ilaalinta dastuurka waxaan rabnaa in dastuurka la ilaaliyo lagu dhaqmo xeer hoosaadka u yaala golaha shacabka si loo xalliyo wixii khilaafaada in dhex yaala ama wixii arrimo dastuuri ee la gudanayo ay ku jiraan mooshinadu waxa kale aan rabnaa inaanu digniin u dirno cid kasta oo ku kacaysa talaabo keeni karta fawda baarlamaanka dhexdiisa ka dhacda sida in inta koox yar oo tiro yar intay baarlamaanka gasho dadaan baarlamaanka ka tirsanayna ay ka soo qayb galaan gacantaag la yiraahdo waxba lagu bedelayo fawdada waanu ka digaynaa in mar labaad mar hore halis siyaasadeed iyo mid amni ay ka iman gaadhay waxaanu ka digaynaa in ay arintaas mar labaad soo noqoto waxaan ugu maqaalaa in la iclaamiyay arbacada in shir la qabto shirkaas waa qeyr sharci waan ka digaynaa in hore loo sii wado arrimihiisa waxa kale aan rabnaa in halkan uga jeedno baaq xildhibaanada qaranka oo ay ku jiraan kuwii mooshinka keenay baaqaasi wuxuu daaran yahay in dhammaanteen dadka danta dalka iyo dadkuba ay ku jirto in la ixtiraamo dastuurka goldololooyin badan buu leeyahay dastuurku laakiin sidaa uu hadda yahay haddaynaan ku ixtiraamin hadda goor dhowna ku ixtiraami mayno ka aynu qoranaa sida uu yahay wax kasta oo laga sheegayo dastuurku sidaa uu yahay in loo ixtiraamo inta laga gaarayo waqti aynu ka bedelno oo aynu qoranno dastuur ka fiican kan hadda sida uu u qoran yahay marka taana waxaan u direynaa xildhibaanada gabi ahaantoodba waxaananu rabnaa in xildhibaanada ugu baaqno in wixii farqiga ee dhexdeena soo galay dadku isku aragti noqon maayo aragtiyo badan baa lagu kala duwanaanaya innaga ku kala duwanaanayna sida dalka loo maamulayo annaga iyo xukuumadda ku kala duwanaanayna waxaanu rabnaa in baarlamaan la shaqeeyo xukuumadda uu ka jiro dalka oo aanu ka fogaanay inuu baarlamaanku isu bedelo mid u shaqeeya xukuumadda maalinka arbacada sida muuqata maalinka sabtida bedeshay laakiin ummadda Soomaaliyeed 5 maalmood baa laga lumiyay wax macnaha ay ku fadhida ma jirto dii magaca qaranka la ilaalinayo in maalinka sabtida ay u ekaato maalinka arbacada soo socota inay u ekaato maalinka sabtida macna ma sameynaysa maalmahan dhaxo ku jira waa un waqti Soomaali ka lumay madaxweynaha u faraqaaday hawshan oo u gacan qaaday oo 3 isbuuc ku dhawaad ka aamusnaa markuu u gacan qaaday haday sideedii ku soo gabagabowdana mas'uuliyadda dalkan cid haysa calaamad su'aal bal saaraya calaamad su'aal weyn ayaa fuulaysa mas'uuliyad xoogan oo ka duwantii sabtida ayaa hadda jirta oo saaran madaxtooyada ku dhacaysa marka dhalanteed iyo hoosaasis iyo maaragtay cagwareejin iyo waqti gadasho waxaasi wax dadka Soomaaliyeed naafici karaan xildhibaanada qarankuna ay yeeli karaan maahan marka waxaan leenahay still tensionku meeshii uu taagan yahay laakiin wax yar oo faraja leelo ummaddu ay ku farxdo waxaan rajaynaynaa oo ku rajaweynahay in arintaas xayndaabka sharciga lagu soo celiyo ma dalbanayno wax sharciga ka baxsan xayndaabka sharciga iyo dastuurka iyo xeerosaadka u yaala baarlamaanka in lagu soo cesho xadgudubyada uu samaynayo gudoomiye ku-xigeenka koowaadna oo sheegtay kusime gudoomiyihii baarlamaanka golaha shacabka ama sheegtay maaragtay xilkii gudoomiyihii golaha shacabka sheegtayna tallaabooyinka uu qaadayaana runtii waxay sii tasciidinayaan waxay dabka ku sii shidayaan xaaladii taagneed ma arkayna marka mar haddii gudoomiye ku-xigeenkii hawshan horboodayay iyo xukuumaddii abaabulkii ay sidii u wadaan ma arkayno dhexdhexaadnimo madaxtooyada ah ama shaqo madaxtooyadu hayso nooma muuqato fariintii maanta uu soo diray warqad uu soo saaray xogayaha guud inuu xilka ka qaadayna wuxuu leeyahay awood u leeyahay midna maahan fawdada dalka meeshay ku socoto iyo raalli ahaanshaha iyo ka aamusnaanta madaxtooyaduna meeshaas uu ku hoos jiraa qodobadaas oo dhan marka la isku soo horiyo waxay muujinaysaa in wali dareenkii cuslaa ee jiray sabtiina wali jiro